damaashaadka iyo mashxaradaasi waxay ahayd 8 February 2017 markii si cad loo shaaciyay in madaxweynaha dawladda Soomaaliya uu ku guuleystay doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan rabaa inaan halkaan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed Farmaajo oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. haddaba hal sano kadib waa sidee aragtida dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ah kuwii sida ballaaran ugu dabaaldegay ugu mashxaraday guusha uu gaaray madaxweynaha iminka talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hal sano dalka Soomaaliya xilligan soo maamulayay welina ay sanado kale u harsan yihiin. waxaan rabaa inaan halkaan uga hadlo dhowr qodob oo ah dawladda haatan jirta oo masharaha u hayo madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa hadda la marayaa 8 February ama 8 February oo ku beegan xilligii uu masharaha dalka la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha aad iyo aad waxaan ugu bogaadinaynaa shaqada culus oo hayo haddaan nahay shacabka ku nool caasimadda gaar ahaan dhalinyarada waxaa jira waxyaalo badan oo madaxweynuhu qabtay muddada haatan uu masharaha dalka isaga iyo xukuumaddiisa iyo ma garanaysaa tiimka la shaqaynayaba waxaa jira ay qabteen waxaa jira waxyaalo badan oo u dhiman ilaahay ha u sakhiro oo ilaahay ha u fududeeyo marka dee wallaahi aad baan u bogaadinaynaa wax ma garanaysaa kollaba shaqadu waa socotaa dawladda wax way qabatay laakiin wax aad u badan ayaa weli dhiman madaxweyne Farmaajo wuxuu noo sheegay maalintii ololihiisii in oo wadda dambe aan la xiraynin hadda laakiin wadda xiristi way sii ziyaaday qadyaana taagana oo waxa weeyaan waddadaas wadnaha wixii magaalada dhinaca koonfureed ka soo xigo mar walba waa iska xirayeen dhibaato weyn aan kala kulanaa waxaa la dhihi karaa horta wax fara badan bay qabatay yaa la dhihi karaa marka koowaad waxyaalaha ay qabatayna waxaa ka mid ah kow security-gi amnigii oo dib ugu soo noqdo dalka sidii ay bulshada ugu bahnayd way qabatay waxay qabatay kala la dhihi karaa xaggii dhaqaalihii oo sare u kacay oo dhaqaalihii xaggeedii ayadana qayb weyn bay ka qabatay xaggii waxaa la dhihi karaa oo kale education-ka waxbarashadii ayay daftigeediina waxbay ka qabatay waxaa kaloo la dhihi karaa inter society isdhexgalka bulshada ayadana wax weyn bay ka qabataa la dhihi karaa marka waxa qabadkii qabatay aad hadda halka sano ay joogto waxaa la dhihi karaa wax weyn ba ay qabataa la dhihi karaa la dhihi karo waxa ugu wanaagsan ay ka qabatay musuqmaasuqii iyo lunsashadii hantida ayay ka hortagtay xuquuqdii shaqaalaha iyo mataqaana xafiismanka dawladda ayaa si toos ah u baxa runtii taas kaligeed ayaa waxa haddii lagu qiimeeyo tilaabo aad iyo aad u weyn kuwa kalena waa dhinaca amniga iyo dhisidda ciidamadana waa waxyaabo yani lagu guda jiro oon isleenahay ayadana waqtiyada soo socda guulo ayay ka gaari doontaa anugu haddaan ka hadlo waxa xaqiiqda dawladdu wax badan bay qabatay ilaahay baa horta mahadda iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala baa u mahad celinaynaa ka sokow madaxda dalku wax badan bay qabteen dalkaanu meel xaalkiisa ilaahay ogyahay buu ka soo noqday marka xaqiiqda idin sheego labar dugaag baa ku diriraysay oo carabtaas imaaraadka nimanka imaaraadka leey u horeeyeen isku soo duuduubay anigu waxaan dhihi karaa afartii Abdullaahi Yuusuf afartii Shariifka iyo afartii Xasanba halkaas ana ka macnaada oo nooga jeedo wax qabadka dawladdu dalku maanta meel lagu xisaabtami karo oo laga sii dhaqaajin karo jooga maanta waxaa lagu xusuustay dawladda dhalatay 8 February inay ahayd dawladdii ugu shacbiyadda badneed xilliga madaxweynaha doorashada uu ku guuleystay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Somali Cable magaalada Muqdisho.